الله kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal hadda waxaan ku sugannahay waa ceelka Shilaabo ee degmada Shilaabo ee qadiimiga ceelkan waa ceel weyn oo dabcan waxa la dhisay markaan weynaan aan ilaahay dhanka faca waxa uu jirsaday sida la sheego 86 sano waxa dhisay gumeystihii Talyaaniga sanadkii markuu ahaa 1935 oo ka dhigan hadda inuu ceelkan uu jiro 86 sano cid xilligaasi soo joogtay waa yartahay in markaasi la helo ceelkani darar aad u kala duwan ayuu leeyahay aad u ballaaran yahay geelal badan iyo xoolo badan ayaa hal mar ka wada cabi kara isla markaana laga waraabin kara sida la sheegay 8 dar oo markaasi hal mar ay ka dhici karaan ninkasana wadaantiisa dhinaca kaga tuuran karo ayuu markaasi ceelkani uu leeyahay soo dhaweynaa magacaaga sheeg عاقل باي كره فديان طبعا waxa ka weydiin doona ceelkan iyo taariikhdiisa waa degmada Shilaabo ayuu markaas ka mid yahay dadka ku dhashay ceelkan maxaa ka haysa taariikhdiisa ceelkan aad u soo sheegtay way anigu waxaan ku dhashay waa socdo marsac hadda looga socdo ku dhashay 54 sano waan jiraa taariikhduna soo sheegtay 86 sano uu ka bisan yahay oo Talyaanigu u sameeyay وادين بنا كده حياة حاجة من كده جبيه هانتي وعيل أقادين واي أقادين بنا كقوية ده كده كم استيت كالمود بليه استيت عطر الوعد بليه على ركض هالكي كال أبا هذانا سطح حرق معك بحكرته سوي عيل كل شيء سمر واي وادان أنت ممكن لو قلت ورمين نسحرين استيت وادان هالمرة هذه لو قلت ورتو حركوه من إسجارين مسألة وكبل عليه وإسجاري يعني لكن نك أشوف أقولن حركة كلو حرق كامرني نك سشوفي يقانا نبان حرقيس مر قرب وسمر مينين نبان حرقيس ولق مر مينين نن حرق وكذا حركة كلو كامر مثل وكل شو منو بيه وايا ما تتجاره الله أنا يا جرا عيل كاس كله بس عد كستو كوسو أرارته سيدا مجا عيل كان الله شيء لي وشلابه نوال بو شبو أنت نقدر وجه سيدا horta gaal kuma soo ordo dad islaam u ba ku soo aroor ma sha Allah ninka islaam ku soo aroorana uu ka cabaa gisi xooliisa way gabigiisana waa ceel ogaadeen oo wasaan ku sheegay Cabdul Kaalim buu leeyahay hal adan Kaalim buu leeyahay adigu qalabadiisa adigu xoogiisa baagri masoo Allah u badan marka saasa ceelka wixii darsiyadan dhow soo galaana uu ka cabaa meelaha dhow ama dadka ogaadeenka nool ah si fiican yaa uu lacab sawi ceelka xaaladiisa marka ceelka ma biyo yareeyaa waxa jira mar waxa jira yaraado ma jiraan ama oo biyiisa bariye horeeta aan matoorada iyo wadaha ayayna jirin iyo laasad dambe oo la qoday barkadaha ayayna jirin marka xalaaqa badan ba imaan jirtay oo jiro mar baa la dhuran jiray hadda intii 20 sano ah biyiis halka ay joogaan inay soo dhaafaan mooyaane oo soo ma dhaafo حاجة دن كورم عبيتك دن كمر كده كتوان معان ولقي بهر طعمها ولا دكتور توقع ولقي هذا خلاري هايو مالك ناصرة مرك كده حراد معان وي مرك السنة وكلاته وسدوا جننا وعير عزيك باكوشي وعيل الأسر ويطلع على وكلاته وحاج عيله وكيله بقوا عيل سداسة واتاي طبعا waxaan filayaa inaad ka dhareegteen ceelkan taariikh dheer ayuu leeyahay waxa uu kamid yahay ceelasha ugu caansan ee deegaanka markaas ku yaala dabcan degmada Shilaabo ayuu ku yaala goobiga ugu horeeyay degmada Shilaabo laga dhisay ayuu kamid yahay gumeystii Talyaaniga waxyaabaha lagu xasuusta markaas waxtarka bulshada u leh ayuu kamid yahay wali degmada Shilaabo ayuu ku yaala bulshadu waa isticmaashaa way cabtaa xoolaheeda ayuu markaas ka waraabsadaan sidoo kale ayaga ayaa caba waxaana caan ku yahay waa Shilaabe nin walba waa shubo aad ma santii